بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمان كل جينا وحنا سلامة يا سلامته المسلمين تسكو سلاما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدة لواد سلطان ماذا اللي يقول شيء واسك كفتنا وحكي جرو مدري أرنتاسي مركي الله يقول قبسنين runtan caadi uma leeyahay inaan suldaan anaga lahaano marka sida ula socdo insha Allah waxaan dhagax meel dhow ku dhacaa dhawaqna meel dheer marka waxaan ka baqayaa bari in Soomaaliya laga soo waco laga dacwoodo marka insha Allah waqtiga waa saxda dhaxay ku dhowdahay inaan ku dheeraado marabo waxaan kaliya dadka Soomaalida xasuusinaya wiil walba dhasho macnaha waxaan iraahnaa qofka marka wiilka u dhashay waxaan ku dhahnaa Ilaahay ha ka dhigo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaco sidoo kale macnaha gabar haday dhalatana waxaan iraahnaa Ilaahay ha ka dhigo tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda anfacdo marka runtii maanta inteena meesha isku nimid waa saddex shay oo la dhigi karo waan wadaagnaa diintana waan wadaagnaa dalna waan wadaagnaa dadnimo ahaan isku meelaan ka soo jeednaa dad isku mid ah ayaan Soomaali waxa la yiraahdaa waa dalka kaliya markino oo homogeneous ka marka dad isku mid ayaan nahay isku meel ka soo jeeda marka arintaas dadka markay hadalkaasi dhahayaan ma aha wax la iska dhahayo haday duco ula jeedaan macna ducada waxay u baahan tahay dadaal in la yimaado marka waxaan u maleynayaa taasi inay tahay hadaf loo baahan yahay qof walba inuu ku dadaalo soo dadkiisu waan ficilaha soo diintiisu waan ficilaha soo dalkiisu waan ficilaha marka dad badan ayaa iga horeeyay oo hadlay oo kana hadlay macna waxna loogu baahan yahay anaga shacab ahaan dadkeena qurba joogta ah maxal inoogu baahan yahay marka hadallo badan oo macna waa soo gaara Soomaaliya ilaa badda hal malaaya qurmiyo magacyo oo waxa jiro oo aan fiicneen oo dadka qurba joogta loo bixiyay sida markino diaspora iyo macna kelmadii diaspora ayaa loo bedelay diaspora marka taasina runtii wax wanaagsan ma ahan madaxweyne hadda ka hor la yiraahdo John F Kennedy ama JFK loo yaqaano oo wadankan macna madaxweyne ka ahaa isla markaana nin la dilay ayaa hadda kor wuxuu ku dhawaaqay wuxuu yiri ask not what your country can do for you ask what you can do for your country marka wuxuu yiri ha weydiinin muxuu dalkaaga adiga ku qaban karaa waxaad is weydiisaa maxaad adiga dalkaaga ku anfacdaa marka hadaan qurba joognahay ma ahan inaan ku fikirno macna jagade ayaan ka helayaa Soomaaliya iyo maxaa aniga ma arkino ka helaya marka waxa muhiim ah inaan is weydiino maxaan dadkeena u qaban karnaa maxaan dalkeena u qaban karnaa maxaan diinteena u qaban karnaa marka taasi ayaan aad iyo aad idinku dhiirigelinayaa waxa la yiraahdaa Soomaali bulshada Soomaaliyeed waa bulsho oo collective ah waa dad oo macna danta guud eega oo danta mujtamacooda eega manihi dad individualistic ah oo sida bulshooyinkan oo westernka ama wadamadan galbeedka ku nool lagu tilmaamo laakiin ayaga laftirkooda hadaad fiiriso waxa arkaysaa inay sameeyaan waxyaabo oo community service oo kale oo hadda anaga Soomaalida hadaan nahay waan lagu kari laayahay marka insha Allah hadalka waa soo gaabinaya waxaan idinku dhiirigelinayaa markino inaad danta guud ka shaqeysaan dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina wax alaala inta karaankiina aad ku tari kartaan inaad ku tartaan waxaan rabaa inaan hambaliyeeyo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon oo ku magac dheer Saacid iyo mudanayaashii ama mas'uuliyiintii ka horeysay oo la doortay kulligood waa hambaliyeenaya waxaan leeyahay Ilaahay ha u fududeeyo xilkoodii hana ka dhigo kuwa yawmal qiyaamaha markino arintaasi aan lagu xujeynin oo u noqoto wax oo anfacaysa oo miisaankooda xasanaadka loogu daro Soomaaliya ha noolaato wassalaamu calaykum